gobolka Shabeellaha Dhexe ee maamulka dawlad goboleedka Hirshabeelle waxa ka soconaya horumar aad u ballaaran oo lagu hirgelinayo deegaanada hoostaga degmada Warshiiq ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe mashaariic lagu dhisayo goobo caafimaad iskuulaad ay wax ku bartaan dadka degan degmada Warshiiq iyo tuulooyinka hoostaga degmadaasi iyo dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo degmada Warshiiq taasi oo ay wado hay'adda Critical Hope Foundation ee laga leeyahay wadanka Koonfur Afrika wafdiga ka socda wadanka Koonfur Afrika ee wado mashaariicda kala duwan ee lagu horumarinayo gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Warshiiq iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe kan degmada Warshiiq wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle ay kormeer ku tageen deegaano uu ka mid yahay deegaanka Qaylaweyne ee ka tirsan degmada Warshiiq kaasi ay horay loogu hirgeliyay iskuul hoose dhexe ah MCH oo ay ka dhistay hay'adda Gift of Givers ee laga leeyahay wadanka Koonfur Afrika waxaana munaasabad lagu soo dhaweynayay mashaariicdaasi lagu horumarinayo degmada Warshiiq gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe lagu qabtay xarunta degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe gudoomiyaha degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Xuseen Axmed Shiidka ayaa ugu mahadceliyay mas'uuliyiinta ka socotay wadanka Koonfur Afrika ee ka hirgelinayo howlaha horumarineed degmada Warshiiq iyo deegaanada hoostaga marka insha Allah markaan amaanteeda ugu baxo iyo waxqabadkeeda Luusa waxaan rabnaa reer Warshiiqow waxaan ku heshiinay Luusa marka ugu horeysa 5 qofood oo aqoontoodu fiican tahay in ay u fidiso martaqad shantaas qof la soo baro xirfadaha ay ku shaqeeyaan loo soo kordhiyo dib lagu soo laabtaan iyaguna ay mas'uul badan ay gudbiyaan Mrs. Naxamola Louisa oo ka socotay hay'adda Critical Hope Foundation ee wadanka Koonfur Afrika ayaa sheegtay in ay ka hirgelinayaan mashaariic lagu horumarinayo degmada Warshiiq iyo guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe I wanted to stop many times, take the camels, a picture, your white sand, a picture, the desert. It was so beautiful, but because you are used to it, you did not see the importance of everything that I've seen today. waxaa ka mid ahay marka aan soconay waxaan aragnay geelaan aragnay bacaadaan aragnay waxyaalo badan aan aragnay oo idinka macnaha waxba idin ahay laakiin annaga macnaha wax weyn ku aarteen aan laga helaynin gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Mayre Makaraan ayaa sheegay in looga baahan yahay shacabka ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe inay ka qayb qaataan howlaha horumarineed ee ka soconaya gobolka ayadoo intaas maartay aqoon horena u lahayn horena aysan u imaan haddana ku adkaysatay inay timaado go'aan ku gaartay waxa ay ka hadlaysay waa maqlayseen adduunyada resource-ga ugu wanaagsan wuxuu yahay dadka waa inay wax bartaan wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dawlad goboleedka Hirshabeelle Cabdullaahi Macalin Musdaf ayaa ka hadlay muhiimadda howlahan mashaariicda lagu horumarinayo degmada Warshiiq iyo guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe sida degmada xooluhu ugu socoto inay hurdada ka kacaan oo ay u shaqeeyaan sida gudoomiyaha degmada Warshiiq loo shaqeynayo Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho